saaka waxa ay ciidamada Puntland hiirtii hore ee subaxnimo ku soo qaadeen ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland weerar culus abaara saacadu markay ahayd 4:10 daqiiqo ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa weerarkoogaasi iska caabiyay isla markaana hub iyo saanad fara badan ka qabsaday sidoo kalena waxa ay gacanta ku dhigeen maxaabiis tiro badan leh taliyaha qaybta 12aad Faysal Cabdi Bootaan General Faysal Cabdi Bootaan ayaa si hufan u sharxaya habkii dagaalkaasi u dhacay saaka hubka iyo saanada laga qabsaday ciidamada Puntland waxaan ku sugannahay taliskii ay xalay ku hoydeen ee laga qabsaday hubka iyo saanada faraha badan leh taliye bal ka waran dagaalku sidoo ku bilaabmay iyo halka uu imika marayo bismillaahir rahmaanir rahiim bahda media waa mahadsantiin TV-ga qaranka aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan kaloo aad u salaamayaa ciidanka qaranka ee guuleystay ee ku sugan gobolka Sool iyo nawaaxigiisa saaka salaadii subax ayay ku soo waabariisteen ciidamadan Puntland iyo huwanta dhisbahaysatay ee ay ku jirto argagixisadu ciidamada qaranka Soomaaliland saaka ayay ku soo waabariisteen ciidanka qaranku waa iska caabiyay waa rogaal celiyay waa jabiyay waxa laga qabsaday halkan arkaysan waa fadhiisinkii xiradoodu ahaa ee ay xalay u hoydeen ee ay gulufka dagaalka ka soo abaabuleen ciidanka qarankana waxaan leeyahay waa guuleysateen guul baa gaadheen insha Allah maxaabiista qabataana gacanta ah ku haystaana dhowra innagana qarannimadeena iyo difaaceena qaranka ilaaliya Allah idin barakeeyo dadweynaha reer Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa meel kasta ay joogaan inay ciidanka qaranka isdinac taagaan inay ciidanka qaranka isdinac taagaan qarannimada Soomaaliland waa lagu soo duulay dagaal hore dhacay hadeerna kan waa kii saddexaad ama kii labaad ee halkan ka dhacay ugu xooganaa hadeer meeshan taaganay waxaan ku dhownay garoonkii diyaaradda airportkii Gambadha halkaas oo ay gulufkooda xalay ka soo abaabuleen oo ay u hoydeen waxa la ogaanayaa oo dawladaha jaarka iyo cid walba aan ogeysiinayna in xabad joojintii halka laga dhawaaqay dawladda Soomaaliland ee hormoodka ka ahayd inay jabiyeen ciidamada hadeer aanu haynaana maaha hadii la oran doono maanta waa maryacalas waa ciidamadii daraawiishta ee Puntland kuwii gaalkacay ka yimi kuwii Boosaaso ka yimi kuwii Qardha ka yimi kuwii Garowe ka yimi ayaanu gacanta ku haynaa waa kuwa baabuurtan saaran dhaawacoodii waanu haynaa dhaawacna waa daweynaynaa maxaabiistana sidii caadiga ahayd baanu la dhaqmi doonaa insha Allah ciidanka qarankana waxaan leeyahay waa guuleysateen Allah idin guuleeyo kuwani waxay ka mid yihiin maxaabiista ciidamada qaranku soo qabteen ciidamada Puntland ka tirsanaa labada nin ayaa ka mid ah iyo kuwa kale oo baabuur kale lagu qaaday ugu horeyn bal adiga magaca أنا جاء عبد الشيد عليها. waxaad soo watay iska soo doontaa شهر أنا وقلي طلعوا نهيري طلع ما نساعدني مش. tolnimada aad u imanaysa meel ka weyneen qarannimada dalkan iyo xuduudda dalkan inuu kala leeyahay طلع ماذا ليش أنا كأني ما كاس أنتوا طلع كمان كأني طلع كاس أصوهيل. مطلع عبد الشريع عين بلد كإسماعيل محمود بان ayo وكا maxaa ku keenay halkan هل كان ده واحد هرتنبان نلقوسه كحية وقوسه hartinimadii markaa maxay ku geysay ده قبضتان ورقنا وكلا أتكلم ترين geesta kale waxa ay ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland gacanta ku dhigeen maxaabiis tiro badan oo ka tirsan ciidamada Puntland kuwaasi oo ka tirsanaa ciidamada kala duwan gaar ahaan ciidanka Jimcaale waxa sidoo kale ay ciidamada Soomaaliland gacanta ku dhigeen hub iyo saanad tiro badan oo ay wateen ciidamada Puntland warkan oo faahfaahsan oo inta ka kororsanna waxaad ku maqli doontaan baahimaha iyaga dambe waa Xasan Ismaaciil Maxamed Xasan Shaah iyo Nimcaan Axmed Dagaal warbaahinta qaranka Soomaaliland